Hi, welcome back guys. Today waxaan qaadan doonaa mathematical operation qaybta basic ah, qaybteeda ugu horeeya. Waxyaabahan ku baran doono waxay iskugu jiraan wada ay yihiin addition, subtraction, multiplication iyo division. Kadibna waxaan u gudbi doonaa inaan xisaabino daily expense, xisaabta maalinlaha ah ay shirkaduhu ku shaqeeyaan. Marka ugu horeysa Excel aan soo kicineynaa, halkaas ayaan Excel ka soo kicinaa, kadib blanka Excel ayaan qaadanaynaa. haddaan halkan fiirino sida casharkeena ugu dambeeyay hadda aan kusoo qaadanay addition aan soo sameynay inaan soo dari karno. column-kan E ah, column-kan waa E, row-giisa saddexaad. E3 name box halkaas ka soo muuqanaya. Waa casharadkii hore ayaan kusoo baranay. Marka E3 haddaan hadda for example 20 gelino, F3 na aan ku qorno maxay 30 isku darkooda waxaan ku ogaan karnaa halkan. Oo waxaan leenahay equal aan leenahay sidaan soo marnay 20ka ayaan ku dhufanaynaa, kadib calaamadda pluska shift iyo plus la qabanaynaa, kadibna waxaan sameyn doonaa kaan u geynaynaa ayaan ku dhufanaynaa. kadib waxaan sameynaynaa markaas E3 iyo F3 isku dar waay. E3 F3 isku dar waxa laga wadaa E column-keeda saddexaad waxaad ku dartaa qiimaha ku jiro F3 column-kiisa saddexaad oo 30 ay ku jirto. Hadii la isku geeyo waa 50 interaandaha 50 soo bixis. marka soo wadaan raba inaan xisaabiyo 9 lagu daray 9 waa arki doonaa, intana 10 lagu daray 10 kale, inta waxaan arki doonaa 130 lagu daray 80 si waxaas loo xisaabiyaa. marka waxaan sameyn doonaa inaan kaas marka si kuwan aad u xisaabisid saan waa dhihi kartaa mar kale inta halkan tagtid maxaan ku irahaa ishaq equal aad qoraysaa meeshaan aad ku dhufanaysaa, kadib waxaa leedahay 9 aad taabanaysaa plus aad qoraysaa, kadibna waxaa leedahay 9 kala riixaysaa dan enter aad leedahay. marka kulli saan ma u xisaabinaya no kan ugu horeysa daa xisaabisid waxaa sameyn kartaa asaga aad ku dhufanaysaa calaamadda markaas noqota qabanaysaa click hoos u jiidaysaa. so marka wuxuu noqon doonaa 9 plus 9 waa 18 waa 10 plus 10 waa 20. marka 130 hadii 80 loo geeyo waa 220 210. okay saasa loo sameeyaa. marka hadda aan ilaaho 40 plus 30 taabaan leeyahay asa hore ka sheegay marka aniga aanan qorin 190 hadii loo geeyo 10 taabaan leeyahay bis asa hore iga sheega ma xisaabinayo baan. marka auto ayuu isku generate garaynaya, يعني 1300 haddaan u geeyo 600 waxay noqonayaan 1900 saasaa loo xisaabiyaa. marka taas waxay tahay addition. marka subtraction se u sameyn karaa subtraction waxaan ku sameyn karaa 300 haddaan iraa 100 ka jar haddaan iraa 4000 laga jaray 140 kan haddaan iraaho 15 laga jaray 9 15,000 iyadan haddii aan dhaho laga jaray maxay $670 for example. intana aan iraaho 12 laga jaray 4 subtraction-ka halka mid ugu horeeyaan sameynaa, inta kale aan kusoo jiidaya see sameynaya waxaan sameynaa equal aan qoraa. equal markaan qoro tirada ugu horeeya first number ayaan kali ku siinayaa, calaamadda subtraction-ka minus-ka riixaya, mouse-kan ka soo keyboard-ka ku soo riixa, kadibna second number aan kali ku siinaya kabacdi enter aan dhahaya. haddii 300 laga jaro 100 waa 200. kuwan kale saan u soo xisaabiyo ayagaan kusoo jiiday halkaas aan keenaa. marka wax dhib ah meesha kuma sugno. 15 hadii laga jaro 6 waa 12 4 hadii laga jaro waa 8 1500 15 hadii laga jaro 670 waa 4 saas u xisaabi kartaa. marka hadda aan niraahdo tusaale ahaan 25 laga jaray 9 ma 16 ba yes waa 16 taabun baa leedahay. marka saas ayadana waxaa la yidhahaa maxay waa subtraction waay. multiplication see loo sameeyaa multiplication tusaale waxaan sameynaynaa lambarada oo times-ka aan sameynaynaa xisaabaadka. marka kan oo kale inaan badin haddaan rabna saasaan leenahay waa badinaynaa waa jiidaynaa. goormaan qabanaynaa falaarta markay saas noqoto aan saas ugu dhigaynaa keligaa leenahay waa soo jiidaynaa intaa keenaynaa. hadda marka hadduu saas kaa noqdo for example serious uu kaa noqdo oo 7 9 8 10 ilaa 18 saas uu noqdo waad qabanay keligaas in copy cell leh halka xaba ugu horeeya badanaa. marka okay waan ka bilaabaa. marka inaan kan badiyo hadaa u baahanahay waxaan leeyahay marka 1 times 7 7 times 1 7 times 2 7 times 3 7 times 4 multiplication table inaan ka sameeyo u baahana. marka kanaan soo jiidaya waa badina halkaas aan geynaya. marka waxaan leeyahay kan inuu bataan raba kana uu 7 kii la taagnaada kan meeshaan taabana fill series aan leeyahay. marka times inaan ka sameeyo raba. marka xabada ugu horeeya bas aan xisaabinaya waxaan leeyahay equal first point aan ku dhufanaa first number shift waxaad la qaabanaa 8 keyboard ka soo riixa calaamad times ay noqonaysaa column-kan kale to number-ka uu ku jiro waa h5 kaligan ku siinaya enter aan dhaha 7 hadii time hal lagu dhufto waa 7 7 hadii lagu dhufto waa 14 siida
marka kulli hadda inaan ku jiida rabana waa qabana kulli kusoo jiidaa marka table ahaan ugu samaysmaa times oo table ahaan marka midaa doontidna color waa siin kartaa si aad u qurxisid tan jaalo si haddaa rabtid first numberka second numberkana waxaa siisaa haddaa rabtid blue c isku darkana waxaa ka dhigi kartaa gaduud saas u xisaabi kartaa multiplication table adigan marka inta waxaa ku qori kartaa num 1 num 2 product isku dhufashada kasoo baxa xaasilo darbiga ama waxaan ku ilaa isha isku dhufashada marka waxa laba tiro isku dhuftay product wax soo baxay okay saas samayn kartaa hadda ina colorkeeda ka qaada u baahan tahay saas inta u dooratid asalan saas u dooratid columnkaas oo dhan waxaad leedahay halkaas inta tagtid no color wide aad saaraysaa saasna u samayn kartaa wide hadda saartid cellskii sidii hore u baxaya marka hadda saan tiraahidna no fill aad leedahay hadda ina colorka guud aad ka qaadid saas u samaynaysaa marka okay marka hadda iraahdo 7 lagu dhuftay 11 lagu dhuftay 2 alif 7 lagu dhuftay 13 oo kale taabaan leeyahay 13 oo qora taabaan leeyahay marka asa ii sheega 91 inay tahay anima qoraa marka isku dhufashada saas waa marka isku qaybintan maxaan sameynayaa isku qaybintan sidoo kale waxaan sameynayaa halkaan aan tagaa 49 lambarka koowaad 7 u qaybi si u sameynaa marka equal aan ku qora goodkan xisaabta ku dejin raba lambarka koowaad wax loo qaybinayo ayaan kiri ku siinay calaamadda qaybtan taaban lambarka wax loo qaybinayo aan ku dhufanaa enter aan leeyahay 7 waa saas u qora marka 36 hadda dayna wax u qaybiyay raba 6 loo qaybiyay 36 kana qabanayo soo jiidaya saas sameyn karaa saan waa isku qaybinta marka haddaan rabno marka taas waa basic calculationskii waxaan rabnaa marka in aan sameyno tusaale ahaan daily task waxaa ku haya daily expense oo kale in xisaabina u baahana halkaan aan tagayna waxaan leenahay product oo kale xisaabinayna tableka casharka ugu dambeeya soo aragno kale laakiin maana xisaabin soo sameyn kaliya product name waa leedahay halkaas aad tagaysaa sa ula ekaysiis hadda tusaalaan f columnka qiimahan f uu ka dhaxbax g ugu tagay marka inaad la ekaysa daarta halkaas tagay double click ku siinaysaa ula kaana ama waa jiidaysaa halkaan tag waxaad tiraahdaa waa quantity inta xabo laga qaato product namekaas price qiimaha la qaato qiimaha la gadaayo iyo total lacagta la gadaayo inta shay okay inta waxaan leeyahay for example smart tv aan gadnay shirkadda smart tv bay gaday waxay gaday 5 xabo la gaday marka 5 xabo price-kooda midkiiba waxaa la gadaay $150 totalka noo xisaabin doona ku dhufashada waa soo baratay totalka sidiisa waxa lagu helaa quantity lagu dhuftay price totalka waxa lagu helaa quantity lagu dhuftay price yani tadaan 5 tv gadnay 5taas xabad kasto kamid ah ay 150 ahayd marka totalka lacagta guud ee la gaday tv-yadaas waxaan ku heli karaa anoo ku dhufanayo 150 ka 5ta marka halkaan ku xisaabin doona marka column-kaan oo kale haddaan rabo inaan weyneeyo waa dooranayaa farta saas oo weyneynaa okay bold aan ka dhigi karaa marka kan saa ula ekaysi hadda product name meesha ka maqan tahay kaliya ku siinayo wala akaana okay kan waa dooranayaa 12 ka dhigaa okay marka inta waxaan dooranaa marka waxaan kaloo gaday HP laptop HP waxaan leeyahay laptop HP tusaale for example waxaan gadnay 10 xabaan gadnay xabadiina waxaa la gadaa $550 waxaan horta inay yihiin maxaan ku dhahaa lacag saan u ogaano column-kaan oo dhan dooranayna sababta 150 saan looma qoro standardka caalamiga lacag qorida saan ma sababta 150 centiyaasha la socdo waa inaan tilmaamno honta baa tagaynaa numbers group aan tagaynaa comma sterling ka dollar hadda dhibaca ay yeeshtay $150 iyo 00 cent wadanka lacagta aan isticmaalayno waa dollarkaas aan saarayna taas ay noqonay kana laftirkiisa waxa la soo geliyay comma sterling qaatan comma aad dooranaysaa dollar sign siinaysaa waxa walba soo geli dollar ay qaadan doona calaamadeed okay inta waxaan leenahay Toshiba laptop oo ah Toshiba waxaan gadnay 20 xabo xabadiina waxaa la gadaa 300 okay waxaan gadnay tusaale ahaan hadana iPhone 11 max telefoonada iPhone ay sameeyay waxaan gadnay 20 xabo xabadii waxaa la gadaa 1600 lacagta guud waa meeqa waa arki doona hadda waxaan kaloo sameynay inaan gadno printers
waxaa la yidhaahaa epson printer. okay, epson printerka meeqa xabaa la gaday? waxaa la gaday 30 xabo, xabadiina waxaa waaye 180 for example, sorry qiimaha isku dhex qoray, marka waxaan leeyahay waa 30 xabo, quantity-ga price-koodana waxaa waa 180. intaan oo kale xisaab ayaa lagu yiri. marka waxaan oo dhan see ku xisaabinaysaa? hal kamid ah xisaabaysaa. soo camera hadda cameraan ayaan la gaday, waxaa la gaday 20 xabo, xabadii waxaa la gadaa 800 for example. okay, ugu dambeyn waxaan kusoo gabagabeyneynaa for example waxaan leenahay okay, waxaan leenahay desktop computer, waxaan gadnay 4 xabo, xabadii waxaa la gaday $100. si u sameynayna marka hal xabo kamid aan sameynayna. marka si totalka u sameynayna waxaan leenahay equal ayaan qoraynaa. first product meeqa xabo? waa 5 xabo ahaa, quantity-ga xabadii meeqa la gaday times waa xabadii hadaa maqashid times aan leedahay. si maxaan ku leeyahay smart TV 5 xabee la gaday, xabad kastana $150 joogta. si totalka guud aan u xisaabi waa in price-ka mid walba aan ku dhuftaa 5 waa 150 waaye, 150 aan ku dhufanaa inta raadaan waa kun, waxa laga rabaa markaas $750, $750, sababtoo ah afartii xaba waxay tahay 300, xabada kale waxay tahay 150. okay, marka waxaan sameynayaa halkaan aan qabanayaa kulli si aan u xisaabiyo waa jiida. marka saan kaa noqdo selka kugu yar, macnaha selka inaad weynaysaa lagaa rabaa, inta tee dhabalkeyga leedahay wala kaanaya. marka waxaan sameyn doontaa smart TV waxaa kasoo xarootay okay, haddaa inaad weynayso u baahan tahay oo kale waxaad sameyn kartaa plus aan leedahay, hadda u weynaaday. hadda smart TV oo kale waxaan kasoo xaraynay 5 xabaan gadnay, xabadiina waa 150, 750 waa. laptop HP 550 waa marka 10 xaba waa 5500. Toshiba sana waxaa kasoo xarootay 6000, 32,000, iPhone 11 Max. Epson waxay soo xareysay maxaan ku dhahay 5400, camera waxay soo xareysay 16000, desktop computers waxay soo xareeyeen maxaan ku dhahay $400. marka totalka guud ee maalinkaas la gaday, tusaale taariikhda kale inaan kusoo darnada u baahan halka waxaan leenahay date taariikhda. marka taariikhda fartan way yaryartahay, fartan si aan ula ekeysiyo taariikhda oo column-kaana keli ku siinayaa, format painter-kaas aan tagaya kana ku dhufanaya dheedaan leh. marka saan dheed usoo geliyo waa isla naqaanaa control iyo semicolon waa isla taabanayna. semicolonna wax kale maahan waa calaamada noocaasa oo keyboardka ku taal. control iyo semicolon markaa samaysa taariikhdan inaan badin hadda u baahanna sida cashirkeena hore soo marnay halkaan qabanayna soo jiidana. haddii ay taariikh 1 2 3 isku bedesho, taariikh 1 bisha 6 koodeedii 2020 kaliya inaad ka dhigta daartid koobi aa leedahay, iyada ha badin kooda bisha 6 transaction-kan oo dhan u dhacay. total inaan sameeyo haddaan rabo, totalka halkaan waxaan sameynayaa total aan leeyahay. waxaa lagu tusaale ahaan maantay intaano transaction intaano maxaan ku dhahay selling aan sameynay oo product aan gadnay, mid walba lacagteeda totalkeeda waa smart TV oo dhan maanta waxaa lacag ka soo xarootay 750, laptop dhan waxaa ka soo xarooday 5500, laptop Toshiba waxaa ka soo xarooday 6000. lacagahan oo maanta la gada Soomaa taariikh 1 la gada bishii 6. marka totalka maanta na soo galay shirkadda soo galay xisaab haddii lagu yiraaho waxaa sameynaysaa in aad column-kaas oo dhan isku furayso, total intaan isku furaysaa si total intaan u qaato. marka waxaan leedahay intaa tegaysa home type, alignment yaa tegay, merge cell aan leedahay, wuu isku furmaaya. marka kana bold aan ka dhigaya. marka totalka guud maanta saa u dejiyo waxaan tagaa halkaan na tagaa laba qaab iskugu dejin karaa inaan iraaho kan waa goodkan waxaa la yidhaahaa waa i3 laga soo bilaabo ilaa iyo waxaa sameysaa i9 saasaa dhigi karaa. ama halkaan inta ku dhufto totalkan saa u dejiyo waxaan tagaa formula tab, meesha aan total ku dejinaan ku dhufanaa. totalka guud ee maanta xisaabta la gada dhan lacagteeda inaan inta ku sheegaan rabaa, meeshaan kali ku siina formula tab aan tagaa waxaan tagaa auto sum. marka wuxuu noqonayaa i3 ilaa i9 inuu xisaabinayo. saasaan sameynaya waa 66,000 iyo maxaan ku yidhaha isheeg $50 lacagta maanta la gada intaas waa. marka tan oo kale colorkan size-kan oo kale si hadaan rabo waxaan sameynaya formatkan aan taabanaa keliya ku siinaa. okay, marka haddaan rabo haddii marka property uu isbedelo comma style $sign aan siinaya. haddii kale markuu saas kuu noqdo farta inta qabatid totalkan oo kale qaad, totalkaas size-kiisa soo qaada kan ka dooro. marka saan hadduu kaa noqdana weyniya double click meeshaas ku sii. marka $65,000 saas kuu noqonaya. marka totalka guud ee maanta la gadana waa saas. marka waxaan baranay marka sida totalka loo dejiyo xisaabta
productiyo معين totalkood loo sameeyo totalka guud ee gebi ahaanna loo sameeyo marka sababtoo ah smart tv totalka waa kana any product kasta ay halkan totalkiisa ku qoran totalka guud ee transactionka date-kan u dhacana halkan uu ku qoran yahay marka hadaan rabo inaan kuwan date-ko aan size-kooda aan ka qaatay si date-ka aan ugu size gareeyo saas aan leeyahay tusaale ahaan oo kordhinaya control saddex oo halkan aan taga waxaan leeyahay oo weyneynaya halkan markuu saas ka noqdo boxka ku yar double click ku sii marka saas loo sameeyaa waa mahadsantihiin halkan waa macadka barashada iyo cilad bixinta kombiyuutarada sii kor magacayga waan jirnaa Cabdiraxmaan Cabdullah see you in next lesson insha Allah do more practice